dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa dharaar cad gacan iyo lug looga jaray xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hilibah ee gobolka Banaadir. Wiilkan oo lagu magacaabo Cabduqaadir Dinixow ayaa ka mid ahaa 4 wiil oo dhalinyaro ah oo mid kasta lug iyo gacan isdhaaf ah ay ka jareen kooxda Al-Shabaab. Cabduqaadir hadda waa naafo lug iyo gacan la. Waxa uu eedsaday Al-Shabaab oo uu sheegay inay si qalad ah uga jareen xubnihiisa. xanuunka ay leedahay marka xubno ka mid ah jirkaaga la jarayo waxa dareemi kara Cabduqaadir iyo dhibanayaasha la midka ah ee indhahooda oo soo jeeda laga jaray gacan ama lug si arxandara ah looga gooyay. waxyaabaha cajiibka ah ee Cabduqaadir uu tilmaamay waxaa ka mid ah xataa marka gacanta la goynayo in shabaab ay isticmaalaan mindiyo aan af lahayn si loo xanuujiyo qofka. waxa uu nala wadaagi doonaa sababta looga jaray gacan iyo lug, isagoo ka sheekeyn doona sidii arxandarada ahayd ee xubnihiisa looga jaray iyadoo loo adeegsaday mindi aan af lahayn. maalin khamiis ah aan ku xasuusto waxayna ahayd xerada Maslax. dad aad fara badan baa joogay oo la soo qasbay oo la isugu keenay meesha si ay u daawadaan wax meesha ka dhacayo, laguna ayna cabsi u noqoto ama ay ku qaataan cabsi gelin si ay wax walba markaasi ay nimankan shabaabka rabaan ay ugu fududaato. marka dadkii goobtaas la isugu keenay baa daawadayaal ka ahaa oo daawanayeen joogeen goobta gacanta lugta nagala goynayeen. marka waxaan rag 4 gaaraya oo dhalinyaro ah oo isku marka laga gooyay lugaha iyo gacmaha. dabcan 4 qof ayaad ahaydeen oo dhalinyaro ah yaa gacan jarista ama lug jarista ku horeeyay oo qofkii ugu horeeyay lagu bilaabay uu ahaa. sax horta waa la kala horeeyay hal mar ma soo wada dhicin laakiin waqti yar la kala horeeyay saf baa loo galay. waxaa ugu horeeyay wiil markaa Ismaaciil la yiraahdo kamid ah 4 qofood. waxaa ku xigay yar kale asna Cali la dhaho, yar kale Jeelaan la asna ku xigay, ana ugu dambeeyay. waayahay markii saaxiibkaaga koowaad labaad iyo saddexaad gacanta laga jaray ama lugta laga jaray adiguna aad ogtahay in laga jari doono sidee maxaad dareemaysaa? walahi xanuun weyn baan dareemayay runtii saan ah markaasi isma ogeyn xaaladeedana kama turjumi karin ba waayo waxaan u jeeday asxaabteedii markaasi dhalinyaradii markaa ila socotay oo markaasi aan xabsi u kooda jirnay lugoodii gacmoodii xagga yeelan dhiigoodii baxya qofka ugu dambeeyay aan ahay. walahi runtii marka xaaladaas dhicisay sidaa markaa aan moogeen sana midiyo af ma lahayn haddana midi oo 3 qofood oo kale ka horeysay oo lagu soo jaray dareemi kartaa ayaguna ay ugu talagaleen dadka inay ku dhibaateeyaan xanuunkaasi dareensiiyaan ay macnaha. tacshiir ka dhacday suuqa xoolaha 2009 ayuu Cabduqaadir ku waayay gacantiisa midig iyo lugtiisa bidix. waxa uu aaminsan yahay inuu mudnaa inuu xubnihiisu ay u nabad galaan, isagoo sheegay in eed looga dhigay inuu dawladda u shaqayn jiray isla markaana jaajuus uu ahaa. dharaartaasi wixii ka dambeeyay Cabduqaadir murug iyo uur ku taalo ayaa u bilaabatay taasoo tan iyo haatan uu la nool yahay. dawladdii Soomaaliyeed ee darteed loo dhibaateeyay ayuu garab ka waayay sida uu sheegay. waa dhibane cidla iyo ciirsi la nool kaasoo u dhaxeeya kuwii dhibaateeyay iyo kuwii loo dhibaateeyay oo dusha ka eegta uun. qaararkii jirkaygii waxyigii qaar baa loo qoday xabaalo aasan oo qabriga jira. yani waxay taas sheegaysaa anigan qaar ka mid ah xubnahaygii inay asahiin qabriga jiraan duuga yihiinba. ana qaad barbaaro qiso muruga reebtiyo qaadan waa ku dhacayo qarankii dhibanahiyo qaanuunka sugayo qarando nabanay midabkay qayrme sida geed qalala iyo qodka dhacay lamooda qalqalooca uma dhalan wiil yaroo qurxoono quwad iyo lixaad iyo rabbi qaayisiiyo cadow qowmibaan ahay qalbigaygu muu jabin maskaxda qaafil kama noqon qayrkayna kama harin qaangaar barbaaro
qarankiiyo dadkiisii qeyrada wadaninimo waxaanahay la qaybsada. cabdiqaadir oo u waramay barnaamijka gocasho ee warbaahinta qaranka ayaa tilmaamay naxariis darada taalla khawaarijta iyo sida ay u dhibaateeyaan dadka ku hoos nool. waxa uu haddeer gocanayaa dhibtii ay u geysteen. haddaba haddii aad sheekada cabdiqaadir ka bogatay muuqaalka laagsaar oo sii shargaree si dad badan uu u gaaro. haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir boggeena xuseen xaaji xasan. mahadsanid.